kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtiin channelku waa channelkeena ku soo dhawaada haddii aad ku cusub tahay subscribe iska saar haddii aad hore nala joogteen laagta dhac qosi wixii fikradaadna comment ku soo dhiibo maanta waxaa idin hayaa Cawaale Aadan ayaa mar qura gabadha la yiraahdo kuwin qaawan wixii tiri Cawaale Aadan aad ayaa u jeclahay laaf ayuu ku sheegtay hadduu Cawaale naag qawi lahayn id guursan lahay aan jeclahay nin Soomaali ee tiri laafka oo aan Cawaale Aadan aan ahayn ma aan guursanin ayuu ku sheegtay wixii tiri Cawaalo waan jeclahay waxaan jeclahay codkiisa waxaan jeclahay qaabkiisa wax walba uu yahay Cawaalo waan ku jeclahay waxa kale oo sheegtay ilaa isla hadartaa ninka kaliya ee tiri oo xataa hadduu naag qabo xataa aan guursan lahay oo naagtii labaad aan ugu noqon amba saddexaad waa Cawaale ayay tiri gabadhaas ayaa mar qore u sheegatay Cawaale jecel dadkii bulshada Soomaaliyeed oo iyagana kuwin qaawan waa waalan tahay ee waxa sheegayso waa been ee meel joog iyaga dhahayaan dhaleecaynayaan iyadana mar qurba ay tiri ninkaasi waan jeclahay laaf ay bal aan sida dhigeysano waxay ka soo hadashay laba muuqaal laba live ee ugu hadleysay ay xogteeda way ku tiri ninkaas waa jeclahay bal aan sida dhigeysano waxa kale ee tiri jacaylkee u sheegatay sida u dhahayso ninkaas waa jeclahay jacayl rasmi ayaa u qabaa bal muuqaalkan kale ay isla daawano oo ay isla dhigeysano ay ku sheegayso in ninkaas si aad xaf dhaaf ee u jeceshahay fanaanka weyn Cawaale Aadan wiilada ay taageeri jirtay intaan soo bixin ka hor taageeri jirtay aan jeclahay mar uun inaan la kulmo mar uun hadii mar la kulmo lahayn waxay tiri ku dartay Cawaale jecelkay waa u sheegay oo waan guursan lahaa marka la soo furaysto waxay qadasiin la soo furnaydas وقال صفر فقادا إذا عوالك لسقام من هسه على عدو جوغا هذا الكسي والتعيي وحيتر وحن سوغنا يا جعلكيغا إنو يمادو حيس مركو صوفو يهيستان دارتو مركز كبعدي جعلكيغا Cawaale Aadan ayaan guursanaa iyadoo arag sii wadato dadka dhama ayaa la yaabeen kuwin qaawan wana iska hadasho wax walba cidaad loo qaban Soomaaliya dhan baa ka yaabtaaday si u dhaqmayso waa qofka kaliya wax dhifaa social media ku jiro ugu dhaqan ku xun ee qaadatay sababtoo dhaqankeeda si u hadleys ida dhanba waa qalab socdo hadda waxaan sugayaa reerkaas markuu soo furo heestas ee taartay jecelkeyga aan heli doonaa واسكي ديني جعلكيغا قبا iyo wax ay sheegayso marka qaar waxa isla waafaad ee xilada waa dadka Soomaalida laas ku jireen xidayna hada jecelka waafaad waxa sheegayso waafaad kuwin qaawanay bal jooji eedan xidaysi no jecelkii waa wax jiro waa wax saane way ku adkaysanaysi walla waa arin ajiib ee kale xamni karna ma jirto kuwine goor Soomaaliyeed kale alla ku soo hanuuniyo ku soo hadiyeeyo xoogay waxba ka qaldan Allahna ku soo xalaas baan dhihi karnaa